مدرسة الأنصار. مدرسة الأنصار. مدرسة أنصار. والأنصار صاحب كيف مختار ورنتي أن آدو في الفرعون لها خير صيوعة ورنتي وحيابا قاران المدارس أصابين سميي والنظام كان مانتا أو سميي أرتد القسي سبوتي يفصح يرجع ليسا كل القسي براروتشين القسي ديريجلين يا كل نظام مدارس وكل سويي. الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. لكل مكان له مقال قوم كستا وحي لهي وراح bay leedahay waxaynu joognaa munaasabad madrasadeed madrasatul ansaar ama markasul ansaar waxay mudan tahay markaa arrimaha madrasada ay lagama maarmaanka u ah inta uu hadalkeegu ku koobnaado hadalkeenu uu ku koobnaado madrasatul ansaar runtii waa ogtihiin oo waa madrasad ay madrasado badani ka horeeyeen hase ahaatee waxay dadaal badan u bixiyey maamulka madrasada ustaad mukhtaar ama sheekh mukhtaar dadaal badan u bixiyey madrasadaasi way isa soo barbar taagtay madrasadaha kale ardaydaasina runtii waxa weeyaan ardayda dugsiyada kala dhigata ee muddada soo dhiganayay way soo garab galeen taasina waa tacab iyo dadaal bixiyey maamulka madrasatul ansaar iyo macallimiintu markhaataan aad iga tihiin intaa markaan intaa uga gudbo madrasada iyo hawsheeda intaanan ka dhammaan haddaan ku yar noqdo madrasada maamulka madrasada wuxuu doonayaa madrasada inuu ballaadhiyo intana imika tahay inuu ka ballaadhiyo ayuu doonayaa uu galaasya cusub ku daro runtii waxaan leeyahay waalidiinta ardayda macallimiinta waa iska xadidan yahay dhaqaalaha ay ka soo galaan madaarisku kolley cidda ay ku tiirsan yihiin ay arrimaha intooda badan ku tiirsan yihiin waa waalidiinta ardayda inuu galaasyo cusub soo kordhinayo hadday arday dhigata noqoto iyo haddii ay maxay ahaytoy arday cusuba la qaadanaya ay noqotaba hadday dhismahooga noqoto iyo helitaankoogaba inaad isku barbar taagtaan oo aad garab siisaan maamulaha madrasatul ansaar mukhtaar iyo macallimiinta la howlgashaba intaa markaan intaa uga gudbo waxaan filayaa aniga mowduuca ii gaarka ah inaan kelmad ka idhaan doonaya waa tawqiiru mucallim waa weyneynta iyo ixtiraamka iyo maamuusida macallinka runtii xilligii annagu aanu ahayn da-yarta dhigata goobaha waxbarashada runtii macallinku aada buu noogu weynaa ixtiraam badan baan macallinka u hayn jirna si aanaan waalidkayo uga waaban baanu uga waaban jirnay macallinka keliya ugamaanaan maxaa dhahay waaban jirin macallinka sidaas inuu macallinku ul iyo wax la moocay ciqaabiya waxaa baad kala kulmaysaan laakiin waxay ahayd weyneyn aan weyneynayno macallinka waxna baraya waqti dambe waxaad moodaa macallinka waxa weeyaan inuu xoogaa dadka dhexdiisa in maxay ahayd waxoogaa uu la fududaaday macallinku ku yahay horta macallinku waa baraha subax walba goobta wax lagu baranayo kusoo kalahaa waa baraha
laga bilaabo xilliga waxbarashada la gala ilaa xilliga waxbarashadu ku dhammaanayso hadday maalin tahay iyo hadday maxay ahayd toy ka badan tahay oo ay bil tahay hadday sano tahay hadday sanawaad tahay intaba waa ka diyaar ku ah goobta waxbarashada macallinku tabac badan uu bixinayo oo ardayda gelinayo oo waxbarasho ah tabac badan oo waxbarasho oo ardayda uu ku bixinayo macallinku waxa weeyaan ka aan helaynin ilaahay agtiiya ajar mooyaane wax u dhigma tabaca ka baxaya waxay ku matalaan dadka qaar macallinka inuu yahay shamac baxaya oo dadkuna ay iftiinsanayaan isna dhammaanaya waxaa lagu matalaa macallinka geed midho laga goosanayo oo haddana dee dhagax iyo qori iyo wax lagu tuuraya si midhuhu uga soo dhaco macallinka culays badan baa saaran culayska macallinka saaran waxaa ka mida hooyo weliba kay kari weydo ee ugu rabash badan madrasadaan iska geeyay tidhaahda halkaa madrasadda iga joogo waa igaga xabisnaan ama caruurtu wax iga yeeli ama isagaa lafihiisa wax u noqon ama waxa weeyaan dhib baa ka soo hooyana aan halkaa madrasadda iska geeyay hooyo waliba tidhaahda sababta ay hooyadu sidaa u leedahay ilmaha badbaadadiisa iyo inaan dhibi soo gaadhin bay sidaa u yeelaysaa macallinku waa ka haya haddaba kaa hooyadu u taag weyday waxa weeyaan la yskaga soo xabisay dugsiga waa ka kaa haya weliba hayn keli maayo waa ka wax kuu baraa ee waxbarashana u fidiya sidaa darteed macallinku wuxuu mudan yahay in la maamuuso in la ixtiraamo in la qadariyo inta uu mudan yahay tabaaraka wa tacaala mahad oo dhan ay u sugnaatay allah inagu kulmiyey goobtan khayrka badan masjidu caaisha inagoo maanta halkan kulan la qaadanayna ardayda dhigata madarasatul ansaar iyo waalidiinta ardaydaasi dhalay ugu horeyn ilaahay baynu tabaaraka wa tacaala u mahadnaqaynaa mar labaadna mahadnaqa waxaan u jeedinaynaa maamulka madarasatul ansaar iyo macallimiinteeda oo runtii dadaal fiican iyo midho fiican muujiyey dadaalkeediina ay ka mid tahay inaynu maanta halkan iskugu nimaadno iyadoo ardayda dhiirigelin aynu u wadno ardayda ama madrasaddu waxyaabaha ay ku howlan tahay waa qur-aanka ilaahay oo la xifdiyo runtii arrinkaasina aada iyo aada buu u qiimo badan yahay arday marka la yahay oo qur-aanka ilaahay la baranayo wuxuu u baahan yahay qur-aanka ilaahay in lagu dadaalo oo qofka qur-aanka baranaya waa qofka dadka ugu qiimaha badan la weeyi qur-aankaasi qiimaha badan inay ardayda lagu dadaalo ayaa runtii aada iyo aada loo baahan yahay waayo ardayda waalid baa daba socda oo bisha ka bixinaya oo mar walba inuu ardayga waxbarto doonaya macallinkiibaa isna waqti ku bixinaya oo maanta oo dhan ku xiiqaya oo ku daalaya ardayga noocaasi inuuna waqtiga lumin ayaa looga baahan yahay waqtigu ka faa'iidaysto waayo dadaalka lagu daba taagan yahay waxaa lagu doonayaa ardayow inaad hormarto ood waxbarato oo naftaada aad anfacdo waalidkaada anfacdo oo ummaddaada anfacdo ayaa lagaaga baahan yahay marka waxbarashadu waxay kaaga baahan tahay inaad ku dadaasho qur-aankaad baranaysaa wuxuu kaaga baahan yahay inaad waqti ku bixiso ood ku dadaasho ood ku celceliso waata la yidhaahdo dadaalaa xaaji cabbaas uu gaadhaa wuuna dhaafaa macnaha qofkii dadaalaa qofka ugu dadaalka badan leh uu gaadhaa wuuna dhaafaa arrinkaasina waa arrin aada iyo aada u muhiim oo la arki karo laba arday baa waxbarasho wada bilaabaya isku mar baa loo bilaabayaa qofna wuu dadaalayaa qofna dadaalkaa ka maqan labadii qof si fiican buu qur-aankii u dhammeeyey oo laga yaabo marka dambe qofkaasi ardaygaasi macallin buu noqdayba midna qur-aankii uu ku dadaali waayo halkiiba uu dhaaf waayey marka dambena uu saaqidaya
marka horta waxaa laydinka baahan yahay ardayay ay macallimiintu idinku dadaalaysaa oo waalidku idinku dadaalayaa waa qur-aanka inaad si fiican u barataane qur-aanka ha lagu dadaalo aad ha loogu dadaalo waqtigaada haysato ka faa'iidayso waayo markaad weynaato waqtiga ama jaaniska aad maanta haysato heli maysid waad mashquuli doontaa waxyaabo fara badan oo adduunyadan ku mashquuliya ayaa kugu iman doona laakiin maanta fursad fiican baad haysataa wax cun oo wax abo wax baro unba lagu leeyahay cidi soo shaqee kuma odhanayso cidi wax soo qabo kuma odhanayso laakiin maanta waxaa lagaa doonayaa keliyaata inaad naftaada horumariso ood wax barato taasuu macallinku mararka qaarkood kugu canaananaya waalidku kugu canaananaya lagugu dadaalaya marka horta inaad wax barato naftaada ayaa u baahan cid kaleba iyadan u baahnayn haddii la iska kaa daayo maanta oo waxba ha baranay halkaas ka joog la yidhaahdo dhibaatadaasi cid kale waxa kuma yeelaysidee naftaada ayaad dhibaysaa waayo naftaadii ayaad jahli ku daysay ilaahayna tabaaraka wa tacaala aqoonta qiimahay leedahay ayuu ka warramay rabbi tabaaraka wa tacaala waxa uu ilaahay yidhi miyay saman yihiin kuwa aqoonta leh ee wax bartay miyay saman yihiin iyo kuwa aan waxba baran jawaabtu waxa weeyaan ma sinno aad bay u kala sarreeyaan qofka ku sugan sidii hooyadii ay ku dhashay oo alif iyo ba toona aan kala garanayn iyo qofka aqoon bartay ee naftiisa horumariyay wax walba garanaya ma sinno aad iyo aad bay u kala duwan yihiin ilaahay tabaaraka wa tacaala tusaale ayuu ka bixiyey dadka waxbarashada ku dadaalaya iyo dadka waxbarashada aan baran tusaaluu ilaahay uu siiyey tusaalaha uu ilaahay ka bixiyey wuxuu ku tusaaleeyey laba qof oo qofna labadii indhoodba ay u fayow yihiin qofna labadii indhoodba beelay maanta qof walba laba indhood oo waxuu ku arkayo ayuu ilaahay tabaaraka wa tacaala uu siiyey qofka aqoonta leh ee ilaahay uu aqoonta uu siiyey wuxuu ka dhigan yahay qof labadii indhoodba ay u fayow yihiin oo wax walba ku kala arkaya wixii xun uu ku arkayaa uu kaga baydhayaa wixii wanaagsan uu ku arkayaayo uu ku qabsanayaa qofka aan aqoonta lahayn ee waxba baran waayeyna qof labadii indhoodba beelay ayuu ka dhigan yahay dee waa laba tusaalo aad iyo aad u kala duwan qof labadii indhoodba ay u caafimaad qabaan iyo qof labadii indhoodba waayey sidaasoo kale ayay iskaga dhigan yihiin qofka wax bartay iyo qofka aan waxba baran arday baad tahay maanta shaygii ugu fiicnaa baad baranaysaa kitaabkii ilaahay baad xifdiyaysaa waxaad tahay dadka ka ugu qiimaha badan baad tahay nabigeenu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama dada waxa idinku khayr badan qofka qur'aanka baranaya ee qur'aanka bartaa kadibna markuu barta intuu ku dhaqmo dadka usii gudbiyaa kaasaa idinku khayr badan buu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam qof walba uu doonayaa inuu noqdo qofka dadka ugu qiimaha badan leh laakiin ma isweydiinay qiimaha waxa lagu yeelanayo waa kitaabka ilaahay oo aad barato naftaada oo aad aqoon u yeesho oo waxyaabaha qofku uu khayrka uu ku helayo weeyaan qofka qur'aanka barta waa ardaygii baranayay iyo qofka qur'aanka dadka baraya waa macallinkii barayay labadaasaa dadka ugu khayr badan ayuu nebigu yidhi sala allahu calayh wasalam marka haddaad arday tihiin waxaad ku sugan tihiin oo aad tihiin dadka kuwa ugu khayrka badan leh waayo kitaabkii ilaahay baad baranaysaan meel hoose ma taagnidine meel sare ayaad ku sugan tihiin macallinka isna dadka wax baraya isna waa kii dadka ugu khayrka badnaayo hadalkii ilaahay uu ku hadlay ayuu dadka barayaa oo dadka uu xifdisiinayaa waxaa lagaaga baahan yahay qur'aankaa si aad hayso waxaa lagaa doonayaa inaad xifdido markaa xifdiguna wuxuu u baahan yahay dadaal fiican ama dadaal badan buu kaaga baahan yahay qur'aanka si dhib yar baa lagu iloobayaa qur'aanka aada ugu celceli kii hoose aad soo dhaaftay ku dadaal mar kastaba inaad ku dadaasho isku day kaad maraysana waxaad isku daydaa maalin walba inaanad garan waayin isku day oo 5 cishaba aad ka baxdo aynu ku dhiirigelinayno ayaynu ka ilaahay ugu mahadnaqanaa qodobka labaadna waxaan uga mahadnaqanaa marti sharafta qiimaha badan leh ee culimada iyo waalidiinta ugu horeeyaan iyo ardaydu ayaana ka dhigan ugu mahadnaqanaa waxaan leenahay dibtum wadaaba mamshaaka watabawa'tu min aljannati manzila baynu leenahay walaalayaal halkan laba qodob baan insha Allah taala ku soo baraarujin lahaa qodob waxaan leeyahay xagga waalidka qodobna waxaan oran lahayn xagga ardayda qodobna waxaan oran lahayn xagga macallimiinta aanu yar raacin doono insha Allah qodobka koobaad inuu xagga waalidka oran lahayn waxa weeye kole macallimiin baanu nahay oo waxa laga yaabaa waxyaabo badan baa ku soo maraya niyo xagga waalidka waxaanu aad ugu baraarujin lahayn in macallimiinta laga warhayo oo runtii
maalidku hadduu iyo macallinku isku xidhan yihiin waxaa laga yaabaa fursado badan oo ardayga markuu yaryaha ku fikiri lahaa inaanu ku fikirin laakiin waxaa laga yaabaa waalidkiiba hadduu maalinta oo ilmihiisa una cabashur u yimaado in macallinkana waxaa laga yaabaa inuu ihtimaam badan ilmihiisiin culays asnaga soo food saaro markan xagga waalidku waxaynu odhan lahayn biidni illaahi alkariim inuu waalidka macallinku isku xidhnaadaan iminka qisaa dhacday waxaa idhi waa arday baa maqnaaday markaasuu ku yidhi waalidkii macallinkaan u tegi markaasuu ku yidhi ardaygii hooyadii maadaa macallinkayga yaqaano macallinkayga maxaad u tegi buu ku yidhi laakiin hadduu waalidku iyo macallinku is aqoon lahaayeen waxyaabo badan runtii ilmahaasi kumuu fikireen markaa xagga waalidka waxaan odhan lahayn macallinka runtii ha lagu xidhnaado oo mar kastoo jaanaysa heshid waxa fiican walaalayaal inaad soo kormeertid oo tira halkuu marayaa oo inaad macallinka la xisaabtantaa waa wax fiican wey wax xun maaha inaad macallinka tiraada halkuu bishii hore socday bishana halkuu socdaa oo waxyaabaha runtii macallinkana dhiirigelin bal baraarujin macallinka u noqon kara weeyaan xagga ardaydaana waxaan u lahayn ardaydaa runtii walaalayaal alxamdulilah maanta la dhiirigelinayo ee fasaxa galaysa fasaxu hamiga loo fasaxaya iyo ahmiyadda ugu weyni ma aha uun in la iska fasaxayo bal waxaa weyn in ardayga firfircooni soo qaado soo yaro nasto bal iminkana waqtigii ramadaantiibaaba soo dhooba bal markaa ardayda lafteeda waxaan u lahayn insha allahu tacaala intaa ay fasaxa yargelaya labada toddobaadna in waalidka oo ka warhayo bal macallinkii ilaa intaa u soo dhigayey laba toddobaadoo lagu fasaxay insha allahu tacaala haddaad ka warhayn kari weydo oo ilmihii au sii baaba'o waa nasiib darro runtii aad u weyn weeyaan macallimiintana runtii waxaan leeyahay khaasatan waa saaxiibka sheekh mukhtaar oo runtii nin aad u firfircoon ilaahay khayra siiyo oo runtii waxyaabo qaaraan madaarisku sameeyey oo nidaamkan maanta uu sameeyey ee ardayda lagu sii sabootiyayo fasax yar galaysa kolley lagu sii baraarujinaya lagu sii dhiirigelinaya kolley waa nidaam madaariska ku cusub weeyi nidaam madaariska ee wajaala intaan soo haynay kolley la yaqaani ma aha runtii macallinkuna intaa uu firfircoon yahay uu soo jeedo halag in la garab istaago runtii oo la dhiirigeliyo oo la baraarujiyo runtii macallinkuna xaq buu inagu leeyahay ilaahay laabtiisa ugu xardha markaas asbaabta waxaa walaalayaal ka mida daacatullaahi waalbucdu can macaasiih qofku inuu ilaahay adeeco oo uu ka fogaado markaasi macaasida iyo inuu ilaahay caasiyo walaalayaal cisyaanka iyo ilaahay qofku inuu caasiyo waa waxyaabaha ugu badan ee fahma darrada laga qaado ee qofku inuu qur-aanka xifdiyo markaasi hor joogsata waxa markaasi uu leeyahay imaamka weyn ee markaasi shaafici la yidhaahdo raximahu llahu tacaala abu cabdillaahi waxa uu yidhi shakowtu ilaa wakiicin su'a xifdii waxaan u cawday buu leeyahay sheekhayga markaasi wakiic la yidhaahdo xifdi xumo igu timid ayaa markaasi aan uga cawday oo xifdi xumaan isku arkay baan ku idhi fa arshadanii ilaa tarki almacaasi sheekhaygu waxa uu igu hadeeyey markaasi ama uu i tusay inaan ka taga markaasi macaasida oo xifdi xumada waxa keenaysa macaasida iyo markaasi dembiga waxaana uu ku yidhi markaasi sheekhiisu waxaad ogaataa cilmigu nuur weeyi wa nuurullaahi laa yuhdaahu caasi nuurka ilaahay macnaha laguma hanuuniyo qof caasiya wa nuurullaahi laa yuhdaa lilcaasi nuurka ilaahay laguma hanuuniyo qof caasiya markaas marka cilmiga markaad baranayso cilmigu nuur weeyi qur-aankuna cilmi la barto cilmiga ugu horeeya markaas weeyi haddaba asbaabta kuu fududaynaysa inaad qur-aanka xifdido waxaa kow ka ah markaasi inaad macaasida ka dheeraato sababta labaad waxa weeye aljiddu fi lxifdi qofku inuu ku dadaalo markaasi inuu qur-aanka xifdiyo inuu waqti badan geliyo qur-aanka xifdigiisa howl fara badan markaasi weeyi iyo tacab adag baa qofka ka soo gaadhaya qur-aankana sahal laguma barto nebiga calayhi salaatu wasalaam qur-aanka markii lagu soo dejinayey howl badan baa markaasi ka gaadhay iqra' baa nebiga lagu yihi calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu yihi maa ana biqaari'in mid akhriye ma yihi nebiga markaasaa la xafuujiyey markaasi saa loo tuujiyey oo markaasi la caburiyey nebigaaba markaasi qur-aanka lagu dhibay barashadiisa adigana markaas sideebaad sahal lagu baran kartaa qur-aanka dhib fara badan baa kaa soo gaadhaysa marka waa in xifdigiisa lagu dadaalo waqti badan la siiyo dhibaatadiisana la xamilo asbaabta waxaa ka mid a markaasi alilxaax ku celcelin fara badan
iyo qofku inuu markaasi ilaahay u tadarruco ilaahay uu baryo inuu ku caawiyo markaasi in kitaabkiisa uu xifdisiiyo qur'aankana markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay ku celceliya qofka qur'aanka markaasi xifdisan nebigu waxa uu ku tilmaamay ama uu ku shabahay qof geeloo kale markaasi haysta haddaad geelaa dabarto uu kuu jooga haddaad dabarka ka sii dayso geelaasi waa kaa fakanaya oo meel fog buu markaasi kaa tegaya qur'aanka dabarkiisuna waa ku celcelin iyo inaad markaasi mar kasta aad la mucaamalooto oo mar kasta aad daba joogto weeyaan waxaa ka mid ah asbaabta markaa qur-aanka kuu fududaynaysa xifdigiisa inaad kitaab keliya laasimto kutubta waynu naqaanaa way kala duwan tahay kutub hore iyo kuwa markaasi dambe oo cusuboo dib laga sameeyey kutub baa jirta markaasi labadii bog hal bog ka wada dhigaysa qofku hadduu maalinba kitaab iska soo qaato oo kitaab gaar uu yeelan waayo xifdigiisii tashatud fara badan iyo kala tag fara badan baa ku imanaya intii xifdisanaana way ka kala yaacaysaa marka hal kitaab waa inaad laasimto weliba kitaabkaad ku bilowday waa inaad ku dhammaysato lacalla hadduu kaa googo-ana kaasoo kale waa inaad kaga soo ceshato ilaahay subxaanahu wa tacaala camalka loo barax tiro niyadaadu inaad wanaajisid markaad dalbasid cilmiga oo waxaad baranaysaa ugu horeeya kitaabkii rabbi subxaanahu wa tacaala anta yaa daaliba alcilmi waxaad u baahan tahay inaad niyadaada ka shaqaysid oo uu noqdo waxaad baranaysaa wax ilaahay dartii aad u baranaysid ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wamaa umiruu ilaa liyacbudu allaha mukhlisiina lahu diin lama amrin ilaa inay ilaahay u baraxtiraan camalka mooyaane ilaahay subxaanahu wa tacaala mar kale wuxuu yidhi faman kaana yarjuu liqaa'a rabbih falyacmal camalan saalixan walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala liqaagiisa jecel inuu ilaahay la kulmo doonaya waa inuu camalkiisa ilaahay u barax tiro oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u gooni yeelo darabka aad dalbaysid waa cibaado qur-aanka aad baranaysid waa cibaado waalidka soo qalqaalinaya soo diraya een isaga la-aantii aan madrasada una soo gaadhayn ilmuhu cibaado weeyi au ku jiro waxaasi waxaa loo baahan yahay inuu ilaahay dartii u niyoodo qalqaalinta ubadkiisa waayo nabigeennu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi innama alacmaalu binniyaat wa innamaa likulli imri'in maa nawaa faman kaanat hijratuhu lidunya wuxuu leeyahay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam acmaasha oo dhani waa niyada qof kastaanana wuxuu niyeysta ayuunbuu leeyahay niyadeennu waa inay noqoto ilaahay dartii ubadkaa yaryar inaynu qur-aanka u barno ee iyaguna ilaahay dartii inay kitaabka rabbi u xifdiyaan dardaaranka labaad wuxuu yahay in ardayda siinan iyo waalidiinta waxaa looga baahan yahay qofka daalibulcilmiga ah waxaa iga horreeyey walaalkay mustafe inuu ka digtoonaado macsiyada waayo macsiyadu qalbiga ayay dishaan cilmigu waa nuur meel nuurkii ilaahay subxaanahu wa tacaala aad ugu tala gashay inaad macaasi geliso waa mid aad iyo aad aafo u ah ixdar yaa daaliba alcilmi min almacsiya ka digtoonow macsiyada fa rubbamaa kaana sababan fii dulmati qalbik waxaa laga yaabaa inay sabab u noqoto madowga saaran qalbigaaga inay macsiyadu sabab u noqotaa dhici karta wa rubbamaa takuunu dulmatan fii qabrik waxaa laga yaabaa qabrigaaga madowgiisa inay sababto macaasida aad gelaysid ilaahay subxaanahu wa tacaala nebiyullaahi aadam waxaa uhi facasaa aadamu rabbah aadam ayaa caasiyey rabbigii oo geedkii loo diiday quutay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay inuu lumay faqawaa ayaa uu tilmaamay oo bimacnaa jannadii iyo arrintii au ku dhex sugnaa ayaa uu ka soo baxay oo wuxuu noqday mid adduunyada iyo yacni yimaada dhibaatadeeda iyo tacabkeega daalibaalcilmiga waxaan u dardaarmanaa inuu ka digtoonaado waxaa la yidhaahdaa adduunyada ama damacu dunya ixdar xubba dunya qofku muslimka ah sidiisaba adduunyadu inay agtiisa ku weynaata ma aha yar iyo weyn midku doona ha ahaado
waayo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam adduunyada wuxuu ku tilmaamay wax cid walba ay heli karaan haddii ay ahaan lahayd wax ilaahay agtiisa ku weyn gaalada ma una siiyeen ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan ka soo qayb galno fi hadihi alunsiya alqur'aaniya waxaa ku mahadsan allah subxaanahu wa tacaala horaysa iyo dambaysaba marka labaad waxaan u ducaynayaa oo unu mahadnaqayaa maamulaha iyo macallimiinta madrasatu ansaar waxaan allah subxaanahu wa tacaala uga baryayaa juhdiga iyo dadaalka ay gelinayaan kitaabka ilaahi subxaanahu wa tacaala inuu allah subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadkooda ugu daro sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa alculamaa alafaadil walmashaayikh alkurama culimmadeenna fadliga badan ee qiimaha badan ee hadlay ee inagu wacdiyey marka waxa weeyaan wacdi aad iyo aad u qiimo badan allah subxaanahu wa tacaala iyagana ha barakeeyo cilmigooga iyo cimrigoogaba allah subxaanahu wa tacaala ha barakeeyo intaa ka bacdi in sha allahu tacaala dhowrka daqiiqo ee soo socda waxaan kelimaad kooban ka odhanayaa fadlu lqur'aan alkariim qur-aanka marka waxa weyn fadligiisa kulley walaalkan sheekh mustafa xafidahu allahu tacaala ayaa asbaabaha iyo sababaha ardayga ku saacidaya inuu qur-aanka ilahi subxana wa tacala xifdiyo inoo sheegay sidoo kale walaalkan sheekh rashiid isna wuxuu inoo sheegay markaa nasaaix guud oo dalabatulcilmiga khuseeya haddii aan kelmaddeeda marka waxa weeyaan hoos ugu daandego walaalayaal qur'aanka waxaa sharaf ugu filan qur'aanku inuu yahay kalaamullahi caza wajal hadalkii ilaahay inuu yahay allaha khaaliqa ah ee ina abuuray ee ina uumay ee ina arsaaqa ee ina marka ilaaliya hadalkiisii weeyi sharaftaa ka qiimo badan oo shay la siiyaa marka waxa weyn ma jirto allah subxaanahu wa tacaala wasafa alqur'aana biawsaafin cadiida qur'aanka ilaahi subxaanahu wa tacaala waxa uu ku tilmaamay tilmaamo aad iyo aad u fara badan haddaynu dhowr ka soo qaadanno allah subxaanahu wa tacaala qur'aanka wuxuu ku tilmaamay biannahu nuurun wa kitaabun mubiin inuu marka waxa weeyaan qur'aanku yahay nuur iyo kitaab cad qaala caza wajalla fi muxkami kitaabih qad jaa'akum min allahi nuurun wa kitaabun mubiin allah subxaanahu wa tacaala waxau leeyahay waxaa xagga alla idinka yimiday iftiin iyo nuur iyo kitaabkaa cad sidoo kale allah subxaanahu wa tacaala wasafahu biannahu alhaadi ilaa afdali طariiqa qur'aanka allah subxaanahu wa tacaala waxa uu ku tilmaamay inuu qur'aanku yahay mid qofka ku hagaya waddada ugu wanaagsan ee allah subxaanahu wa tacaala loo maro kulley adduunyaan joognaa geedi baynu marka waxa weeyaan nahay aakhiro ayaanu soconnaa marka waddada aakhiro ina geynaysa waddada ugu toosan waa qur'aanka allah subxaanahu wa tacaala macallimiinta iyo maamulaha madrasadda magaranaysa macallinka aad baynu ugu mahadnaqaynaa jasaakum allahu khayr baan leenahay walaalayaal kolley culimmada ayaa ka hadashay wixii wacdi iyo waanaa wax yar kelmad yar oo waalida umaan insha allah halkan ka odhanaya waxa weeyaan walaalayaal jasaakum allahu khayr waxaa la doonayaa waalid ahaan inaynu ku garab taagnaano macallimiinta khayrka iyo maaragtay kalaamka rabbi ay barayaan awlaaddeennaas inaan dhiirigelin mar walba walaalayaal u samayno oo isku imaatinkan oo kale markay macallimiintu inaga codsadaan jasaakum allahu khayr aynu kasoo wada qayb galno calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan waxaan salaamayaa marti sharafta qaaliga ee kasoo qayb gashay madarsadeena aadka u qurux badan ee madrasadeena nasaar waalidiin iyo arday iyo culimaba waana wada salaamayaa halkan waxaan aad uga taagniyayaa dhammaanteen inaan ilaahay isku keen kulmiyey si sharaf oo aad u qurux badan yahay maanta guusha aad gaadheen waxay taxaamadii inay dhammaadeen
maaragtay aad u faraxsantihiin hamoodina fasaxan aad galaysaan inaad tihiin fasax maaragtay aad ciyaar iyo aad ku dhamaysanaysaan fasaxan waxa weeyaan fasax la rabo inaad cashiradiinii aad inagu adkaa inaad soo diyaarsataan nin waliba meesha ku adag hadduu hingaad digto iyo hadduu quraan dhigtaba wuu is ogyahay meesha ku adag inuu soo jilcisto 12 cisho ee nala fasaxay mar saddexaad waxaan u mahad celinayaa waalidka yeedhmadayadii ama u yeedhitaankii aanu ka dalbannay inay noo yimaadaan waxa weeyaan naga soo aqbalay soona ajiibay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa sidoo kale waxaan ugu mahadnaqaynaa waalidiinta ubadkooga ay dhigtaan markiisu al-ansaar laakiin howlo xawaa'ij ku yimiday awgood ay waxa weeyaan ku maqnaadeen iyagana aad iyo aad u mahadsan yihiin ay ugu horeyso gudoomiyaha mu'asasada daaciyaat almu'minaat ay ugu horeyso xagga ay dhakhtar Itoobiya u baxday iyo waalidiinta xanuunsanaya iyaguna ee soo kici kari waayay aad iyo aad ayaan iyagana ugu mahadnaqaynaa walaalayaal markiisu al-ansaar hiigsiga iyo hanka aan ardayda ka leenahay waxa weeyaan ardayda maanta qur'aanka teeramka waxay ku galeen waa 7 juz oo qur'aan ah ayay ku tartameen marka laga reebo ardayga cabdicasiis maxamed cabdiraxmaan oo isagu suuratul baqara iyo al-imraan iyo nisaa 5 juz ee sare qur'aanka isagu ku galay imtixaanka dhammaan ardayda kale laakiin waxay ku galeen 7 juz nin walba inta uu ka dhigtay ardaydu waa tartameen walow dhibco aad waxa weeyaan ayna aad u kala sarreynin laakiin haddana marka la tartamo arday mid ku xisaabtan laba meesha soo dhigo in aad ka badiso ardaydii dhammaantood ood kaalintii koobaad qaadato iyo in adiga lagaa badiyo oo walaalkaagii aad wax u baranayseen waxaad wada subcin jirteen waxaad wada yeersanayseen uu kaa badiyo markaa guusha marka lagaa helo yaynaan ka nixine waa inaan nidhaahno maasha allah aan nidhaahno weeyaan ardaydaasi halkaa ayaan shahaado la yidhaahdo shahaadatu takriim ama takriim maamusitaanka ardayda dhigataa waxa weeyaan markiskeennan al-ansaar ardayda kaalmaha gashay si guud markaa iskugu geeyo 18 arday ayaa waxa weeyaan halkaa shahaado ku qaadan doona waxaa kaloo iyaguna shahaado qaadan doona waalidiin xafladii aan samaynay waxa weeyaan shahaadadooda laakiin ay naga dib dhacday oo xilli dambe aan xasuusanay iyaguna shahaadadoodii halka ka qaadan doona hiigsiga aan leenahay wuxuu yahay waalidiin haddaan xagga waalidiinta u noqdo ardayda iyaga waxaan leeyahay arday maanta fasaxaynu gelaynaa ma aha inaad kitaabkii halkaad maanta dhigtaad kaga tagto war qur-aanku waa shimbir baadka la hayo macallinna kuu diyaarin maayo waalidna kuu diyaarin maayo adigu waa inaad iskaaga u diyaarsato iskaaga masaajidda u gasho haddaad gabar tahayna qolkiinna aad iskiinna aad u tegtaan ood u diyaarsataan waa shay laga maarmaana waalidiinta waalidow waalidiinta inta ubadkooga ka war haysta aad iyo aad bay u koobantah ardayda iminka halkaas soo fadhida intaa waalidkooga isnaqaanaa way yar tahay ama waalidkooga ay noo yimaadaan walow dumar ay jiraan maalin ay cadceed soo baxday inayna soo marin ma jirto mar kastay adeega sii doonanayaan madrasaday soo maraan ama iyagoo adeegooga sitayna soo maraan ama iyagoo adeegooga sii doonanayo ayayna soo maraano markaasi hebel ma ka baxay koranaya inantii ma ka baxda aad iyo aad iyaguna aad bay ugu mahadsan yihin waalidiintaas waalidow intaad hadhow toole xagga dambe ka odhan lahayd madrasadu waa noocaa macallimiintu waa noocaa maamuluhu waa noocaa waxaa la doonayaa in aad dhaliishan tahay aad soo dhigato goobta ood la timaado si aanu kula eegno dhaliishaasi laba mid bay noqon mid amadna lagu helaabay noqon ama mid inankaagii dhakada ka saarnaata ama adiga ku saarnaataabay noqon marka inaad shayga noo sheegtaan ayaa aad iyo aad uga muhiima waalidow siduu inoo sheegay xaaji cabdicasiis waxaan furnay qayb barbaarina
ardayda aad iyo aadka u naqnaqan haddana ducooyinka qaabka ay dhakada uga akhriyayaan macallimiinta markiska macallimadda iyo macallimiinta ka howlgala markiskeennan alansaar aad iyo aad bay iyaguna u mahadsan yihiin nimcooyinka ugu waaweyn ayay ka mid tahay ilaahay tabaaraka wa tacaala waxau yidhi lilaahi mulku الsamaawaati wاlأrض yakhluqu maa yashaa yahabu liman yashaau inaaثa wayahabu liman yashaau dukuur ow yuzawijuhum dukraana wainaaثa waxau ilaahay tabaaraka wa tacaala uu yidhi ilaahay tabaaraka wa tacaala makhluuqaadkiisa wuxuu doonu abuuraa samooyinka dhulalka makhluuqaadka kale anu aragnay ilaahay tabaaraka wa tacaala isaga ayaa abuuray wax tacabiyo dhiboo ka soo gaadhayna ilaahay subxaana wa tacaala ma jirto yahabu liman yashaau inaathan wayahabu liman yashaau dukuur ilaahay tabaaraka wa tacaala markuu ka hadlayay bini aadanka waalidkuu doono wuxuu siiyaa buu yidhi hablo oo habluun buu dhalaa waa nicamka ilaahay tabaaraka wa tacala ayay ka mid tahay kuu doonana inamuun buu siiyaa inamuun buu dhalaa kuu doonana ilaahay tabaaraka wa tacala uu iskugu daraa rag iyo dumarba uu iskugu daraa wayajcalu man yashaau caqiima kuu doonana ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ka dhigaa midaan waxba dhalin xikmaddiisa ayaa keensatay ilaahay subxaanahu wa tacaala kanaan waxba dhalin umuu waayin markaasi dembina muu gelin gaara laakiin ilaahay tabaaraka wa tacaala xikmaddiisa ayaa saa keensatay sidaas inay u khayr leedahay ayuu ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ogaa walaalayaal nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam in fara badan buu mas-uuliyaddaasi inagala hadlay rabbi tabaaraka wa tacaala isagoo tilmaamaya ubadka iyo maalkuba inay yihiin siinatu lxayaati dunya quruxda iyo dhaldhalaalka noloshan adduunyada waxau yidhi almaalu walbanuuna ziinatu lxayaati dunya ubadka iyo maalkan iyo dhaldhalaalkan adduunyadu waa quruxda iyo nimcada adduunyada laydigu siiyo ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala markaa qoys ubad dhalay waa maxay nimco ka maqani ma jirto waa deganaansho sakiino iyo xasilooni ayaa ilaahay tabaaraka wa tacala uu siinaya markaa ubadka waa qurux nolosha adduunyada oo dhan ayay markaasi qurux u yihiin nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam wuu u ducayn jiray markaasi ubadka saasaanu inafar in loo duceeyo oo ubadkii aan la habaarine loo duceeyo waxa uu warinayaa markaa anas ibnu maalik radia allahu tacaala canhu waxau yihi maalin maalmaha ka mid a ayaa aniga iyo habaryarta iyo hooyaday aan u tagnay rasuulka anoo yar bay i kaxeeyeen buu ihi deedna waxay ii geeyeen buu ihi rasuulka sala allahu calayhi wasalam hooyaday waxay ku tidhi buu ihi rasuulka anas ibnu maalik inaan ka yari khaadim buu kuu noqonaya aduu kuu khidmaynayaa nebi maxamedow sala allahu calayhi wasalam aduu kuu shaqaynayaa u ducee rasuulku sala allahu calayhi wasalam inankaa yar waa u duceeyey waxa uu ugu duceeyey allaahumma aktir maalahu wa waladahu ilaahigayow maal fara badanna sii ubad badanna sii buu ilaahu tarmaa ubad buu ugu duceeyey marka nebigu sala allahu calayhi wasalam wabaarak lahu ilaahu ubadkaana u barakee buu yidhi marka mas-uuliyadda waalid ahaan ina saarani waa maxay ubadka inaynu u ducayno mar walba aynu u ducayno waayo ducadaas waa mustajaabo la aqbalaya habaarka waalidku habaaraya carruurta ma fiicina markaa habaarkaas waxaana laga yaabaa inuu ilaahay tabaaraka wa tacala uu aqbalo oo uu habaarkaasi ku dhaco ilmihi yaraa markaa ubadka waa inaynu u ducayno had iyo jeer aynu ku dadaalno ducadooda iyo markaa mas-uuliyaadka ina saaran waxaa ka mid a ubadka inaynu tarbiyayno oo aynu waddada toosan iyo tubta toosan aynu markaa ku barbaarino haddaad iminka intuu yar yahay aad barbaarin weydo ood ilaahay ku xidhi weydo subxaana wa tacaala ood hadalka ilaahay iyo diinta aad bari weydo hadhow markuu kaa hor yimaado dhibtaasi adaa geystay marka waana mas-uuliyaadka layna weydiin doono ilaahay subxaanahu wa tacaala waxau yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara mu'miniintiey waxaad naar ka badbaadisaan lafiina iyo ehelkiinaba naar ka badbaadiya
waxaa loo jeedaa ilaahay subxaana wa tacaala ku xidha oo diinta bara oo dad toosan oo ilaahay ku toosan ha noqdaan. waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. marka koobaad waxaan salaamayaa marti sharafta aadka iyo aad inoogu qiimaha badan leh nagala soo qayb gashay xafladan aadka iyo aadka u qiimaha badan leh. meel la iskugu yimaado xaflad meesha ugu qiimaha badan leh iskugu imanay beedkaana iskugu imanay guriga ilaahay. awalan waxaan u mahadcelinaynaa marti sharafta qiimaha badan ee nagala soo qayb gashay madarasada Al-Ansaar, maamulaha Mukhtaar Sheekh Cabdiweli, ardayda dhammaan macallimiinta ka qayb qaadanaysa imtixaanaadka qaadanaysa. waxaan kaloo mahadcelinayaa maadaama uu waalid ahay ardayda halkan quruxda badan ee iskugu timiday ee ka soo qayb gashay in iyaga xafladan loo qabto imtixaanaadka. anigoo ah waalid ka tirsan awlaadiisa ay dhigato waxaan idin leeyahay maamo dhammaantiin meel aad barataan waa halkii ugu qiimaha badnayd inoona raacaysa qabriga wax la bartana inoogu qiimo badan. maxaan ku dhahay waxaan ku yidhi waxaa inoogu aynu ku soo dhaweynaynaa ardaydeena aadka u qiimaha badan leh. anigu mar haddaan waalid ahaan ahay dumaroo waxaanu idin leenahay awlaadda waa in aynu macallimiinta kala warhaynaa. marka koowaad aniga markaan Zaynab ahaantayda iska soo qaado waalid baan ahay ardaydiisa ay dhigtaan dumarku waa inay kala warhayaan waayo ilmahaynu guriga ku kari weyno waxaynu keenaa madarasada siduu inoo sheegay waalid mar dhaweyd halkan ka hadlayay ardaygaan kari weyno madarasada keenaa waa inaynu kala warhaynaa macallimiinteena sharafta iyo qiimaha badan leh ay noo hayaan macallimiinta. waxaan kaloon aad ugu mahad celinayaa maamulaha madarasada Al-Ansaar Sheekh Mukhtaar Sheekh Cabdiweli. macallin adigana aad iyo aad baan kuugu mahad celinaynaa. ilaahay wuxuu marka dhexdiina isku mahad celisaa manana samada idinka soo mahad celiyaa. aad iyo aad jazakallahu khayran jazaa. raggu waa geersara waa markasta dumar inaga ayaa og raggeena way noo maqan yihiin iyaga tabciin iyo awlaadeena gurigeena ku haynaa waa inaynu awlaadda kala warhaynaa. anigu markaas baan idin oran halkaan soo istaagaysiin ahaantay aad iyo aad baad u mahadsantihiin. bismillaahir rahmaanir rahiim wan najmi idaa hawaa ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى